qof wax bixiya oo wax bixin oo bixinaya daraadeed faqri u noqday lama sheegin qof wax ilaaliyay oo ku bakhiilay oo ku guulaysto liimaan ku gaarayna lama sheegin bal u fiirso qofka wax ku bakhiilo wax haysta wixiisana ku bakhiila waajibaadkii uga bakhiila khayrkii iyo nafcigii uga madda uga bakhiila ilaahay agtiisa amaan kuma leh dadka agtoodana amaan kuma leh bal u fiirso qofka nacfiga dadka u leh ilaahay agtiisa amaan buu ku leeyahay dadka agtoodana wuxuu ku leeyahay amaan iyo khayr baa u taala maalin buuna u baxsanayaa xaaladiisu adag tahay khayrka uu la baxayo marnaba ku qadimhayo aakhira intaan la gaarin adduunyada u baxsanaya imisa ilaahay ku caafiya dad anfacay fuqara ah oo masaakiin ah imisa ilaahay amraad uga dul qaada dad jirana imisa ilaahay ku anfacay ولذلك الإمام الشوكاني بدر الطالع وحو كسو غورينا هي قصة عجيبة قصة وحي أهيد نمبا وحو لها بارير وحانا كل حيال عيل كاس بيرتا كل حيال بيرتا سكور ورابية مساجد بو ماشي كدس مساجد أيودس dad badan oo sidaas ma leh masaajidku habeenkii wuxuu soo qaadaa masaajidka la soo aadaa faynuusti oo masaajidka ku iftiimin lahaa iyo cashadii ayuu soo qaataa masaajidku soo dhexdhiga hadduu dad ay yimaadaan masaajidka way la tukadaan cashadana waa siiya hadduu dad waayo cishihiisu iska tukadaaya salaadiisa cashadiina asaga cuna gurigu iskaga soo laabto dhaqankaas u lahaa faynuusti iyo cashadiibu isla soo qaada maalintii dambe ayuu wuxuu damcay ceelkii oo guray oo biyo yareeyay in la qodo asaga iyo wiilashiisi ceelkii bay qodid ku bilaabeen aabihii baa hoos jira ceelkii meel kasta waa iskaga soo dumay gabigiisiiba ilmihii waxay isku dayeen inay ceelkii qodaan oo aabba ka balraadiyaan oo badbaadiyaan waxa u soo baxday inaan waxba laga qaban karin ceelkaas inuu dumay waxay uga tageen oo yiraahdeen qabrigiisii baa ilaahay ka dhigay naga wada sidii bay iskaga daageen 6 sano ka bacdi ayay qabrigii qodeen ayagoo oranaya ceelkii aan bal fiirino ayay meel kale geesa ka qodeen waxay ugu tageen aabe oo nool ayay meeshii ugu tageen way yaabeen soo bixiyeen bal waran bay yiraahdeen wuxuu yiri markii aan ceelku dumay meel yar oo god abaan galay soo dumay waxa isku kay gooyay dhagax weyn baa fuulay iridii meeshaas wixii soo dumay oo dhan iga badbaadiso aan ku jiro ilaahay iga badbaadiyay anoo mugdiga ugu weyn adduunyada mugdi la maro ku sugan ayaa waxa ii soo galay faynuusti iyo cunadii aan qaadi jiray oo isla socda ii soo galay faynuusti baa ii timaada iftiinkaas baan helaa cunadii aan qaadi jirayna meesha bay igu timaada cunadaydan iska cunaa faynuusteedana waa iftiinsadaa intaasaan halkan ku soo mooday oo ku jira qofka adduunyadan jooga sadaqada uu la baxaya cajaa'ib bay leedahay aad iyo aad nuuciyaal ah oo u kala duwan ahlu cilmiguna in badan ay soo guuriyaan cajaa'ib dhacda adduunyada markuu joogay hadda waxay uga tala galeen nin dhintay laakiin nuxurkii uu samayn jiro khayrkii uu samayn jiray intuu sadaqa qaada maalin walba masaajidka uu geynayo iyo faynuusti iftiinka uu ku nuurinayo beydka ilaahay ayaa loogu nuuriyay mugdiga inta leeg asagoo ku jira ilmihiisina ay ka quusteen ayaa halka loogu iftiimiyay qofku marka nacfiga uu leeyahay oo khalqiga uu leeyahay marnaba waayi maayo waa helaya
إلهينا سبحانه وتعالى وصينيه